الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، walaalayaal sida aan la socono, diinta islaamka waxay noogu soo gaartay ay noogu timid si sahal ah oo dhib yar. sida aad la socotaan, rag ayaa dhiigooda ku waraabiyey, rag ayaa raaxadooda adduunka uga tegay, rag ayaa u soo halgamay oo dhibaato fara badan u soo maray xaqiiqdii. ilaahay subxaana wa tacaala manigiisa iyo fadligiisa waxaan ku helnay si sahal ah. walaalayaal, waxay nagu soo gaartay ayadoo dhibaato iyo mashaakil fara badan aan markaa jirin, laakiin wallaahi haddaad ogaan lahaydeen ama aad baran lahaydeen raggii u soo halgamay dhibaatadii iyo rafaadkii ay u soo mareen, saan maanta u dayacnay uma dayacneen, saan maanta ka dhignay kama dhigneen. ragaa wallaahi jirkooda loo googooyey, gabal gabal dhulka loogu qubay. walaalayaal, wiilkan dhallinyaraha ee aan doonaynay inaan ka sheekaynay, jacfar ibni abi taalib, xilligii dhallinyaronimada uu ku jiray ayay ahayd xilliga imtixaanka adag uu maraayo, xilliga mashaakilka adag uu maraayo, xilliga ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaanaadka uu ugu talagalay. waa xilli shaabnimo ah, waa xilli dhallinyaronimo ah, waa xilligii qofka mar allaala markuu da'daas ama uu ku jiro wakhtiyada adduunka u bidhaamayo ee uu jecel yahay wax kasta ee uu rabo inuu markaa inuu ka qabsado. balse ilaahay wuxuu ku manaystay ayagana in darajada midda ugu sarraysa la gaarsiiyo, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala gobolkood ayagoo sariirahooda jiifa loogu bishaareeya jannada, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhiga xidigyo lagu hanuuno. ilee saxaabadu waa nujuum, mid allaala midkii aad ku dayataan waad hanuunaysaan buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. mid kastoo lagu daydo, mid walba hadalkiisa la qaato, ilan waa cuduuliin, waa caadiliin, waa dad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u doortay jiilka iyo wakhtiga ayagu ay joogeen inay koonka maamulaan, oo rasuulku uu yidhi khayruulquruuni qarnii, qurun oo dhan qarniga aniga aan noolahay ayaa u khayr badan iyo dadka ila nool. uma aladiina yaluunahum, uma aladiina yaluunahum, 3 ama 4 buu rasuulku tiriyey. intaa ka bacdi dadku waa isbedeli doonaan, intaa ka bacdi dad baa imaan doona xaqa iyo baadilka isaga dhex qasan yihiin. waxaa imaan doona dadkaasay u halgameen aan u halgami doonin, dad diintoodu si kale ay tahay ayaa markaa imaan doona. sidaa darteed saxaabada barashadooda iyo taariikhdooda oo la barto, qofku iimaan buu u kordhiyaa, qofku wuxuu u kordhiyaa zuhdi, inuu adduunka ka saahido, qofku waxay u kordhinaysaa inuu rakhiis ka dhiga nafsadiisa, uuna u huro wax walba oo mabda' diini ah. xaalad badan oo noocaas ah ayay markaa tilmaamaysaa. jacfar ibni abi taalib, sida magaciisa aan ka fahmi karno, cali bni abi taalib waa walaalkii, abi taalibna waa aabihii, abi taalib mar nebiga waa adeerkii. idan waa 2 wiil oo walaalo ah oo xagga adeernimo ku walaalo ah, jacfar ibni abi taalib iyo maxamed ibni cabdillaahi nebiga sala allahu calayh wasalam. waxaa la yidhaahdaa reer bani cabdilmanaaf 5 qof ayaa ku jirtay, 5toodaba waxay u ekaayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam. weliba ekaasho midka ugu daran ayay u ekaayeen, oo dadka xataa indhaha ka liita oo damacsan inay waxoogaa si fiican aan wax u fiirfiirinin, inta badan way isku qaldayeen nebiga iyo ayaga. waa 5taa qofood, 5taa qofood nebiga iyo ayaga waa la isku qaldi jiray. ma asagiibaa? maya ma aha.
maya waa asagii, waa dadka aan basiiro fiican markaa samaynin. waxaan shaki ku jirin qof kasta oo meesha fadhiya inuu jecel yahay inuu wax ka ogaado shantaa qofood oo nebiga u eg sala allahu calayhi wasalam. waa shaki la'aan. in badan oo garanaysaa fadhisa, laakiin inteena kale waa jeclaan lahayn oo qof kasta waxa uu jecel yahay shantaa qofood oo nebi moxamed u eg calayhi afdal asalaat wa aska asalaam korkiisa ha ahaatee inuu markaa ogaado. ma idiin sheegaa shantooda, shantaa nebiga u eg sala allahu calayhi wasalam ma idiin tiriyaa oo ma idiin sheegaa? jawaabta waa haa soo maaha. abu sufyaan bin alxaarith, abu sufyaan ibnu xarbin ma aha, yani isku qaldin. waa abu sufyaan ibnu xaarith bin cabdilmuطalib, wahwa ibnu cami rasuul, asagana waa ibnu camigii rasuulka, walaalna wuu la ahaa rasuulka xagga radaaca iyo nuugmada. kow ma haysataa? waa abu sufyaan ibnu xaarith oo ibnu cabdilmuطalib ah, waa ibnu cami rasuul sala allahu calayh wasalam, waana walaal xagga nuugmada kula walaala ah. ka labaadna khusam ibnu alcabaas bin ibnu cabdilmuطalib baa la yidhaahdaa, asagana waa ibnu cami nebiy aydan sidoo kale. waa labo. saa'ib ibnu cubayd ibnu cabdiyaziid ibni hashim nin la yidhaahdo oo asagana jaddu limaamu shaafici noqon doona radia allahu canhu. saddex. xasan ibnu cali, allahu akbar. xasan ibnu cali wuxuu u baahan yahay keligii inta laga sheekeeyo, keligii hal habeen inaan qaadano walaalayaal haddii ilahay idmo subxaanahu wa tacaala. xasan, wamaa adraakum maa xasan, wiilkaygan yariiska ah, laba fitno oo waaweyn ama laba qolo oo waaweyn fitno ka dhex dhici doontaa ayuu islaaxin doonaa ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. asagoo ilmo yar ah guriga nebigu ku barbaaray, timir dhulka ka dhacday oo timirtii sadaqadee lagu aruurinayay guriga nebiga sakada intuu saas usoo qaatuu afka la aaday. waa sabi, allahu akbar. yaa awowo ah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. kakh oo yidhi nebiga, kakh akh aan dhahnaa. hooyada hadda markii canugeeda istiqdaar iyo wasaqay afka gashanaysa akh bay dhahdaa, markaasuu soo tufaa ilmaha yariiska ah. kakhin, kakhin, riwaayad kale kakh akh uu yidhi nebiga, saasuu usoo tufay canugii yaraa. xasan, ma ogid miyaa haddaan aalubeyd ka nahay inaanan sadaqada cunin salawaatu ullaahi wasalaamun caleyh. sabi ayuu la hadlayaa, uu tarbiyaynayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. murabbi, ku yar buu barbaarinayaa, kuwen buu barbaarinayaa, oday buu barbaarinayaa, acraabi buu barbaarinayaa, reer miig buu barbaarinayaa, reer magaal buu barbaarinayaa. jaanib kasta ayuu nebigu shaamil ka yahay sala allahu calayhi wasalam walaalayaal. sidaa darteed wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, caalamka oo dhan inaad naxariis u tahay baan kuu soo dirnay buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. dhibkuma aha, cadaabkuma aha rasuulka caalamka, waa u raxmad, wallahi waa naxariis. diinta uu wadaa naxariis ah, asagaa naxariis ah, ilaaha soo diraa naxariis badan subxaanahu wa tacaala. akh buu yidhi tuf, ma ogid miyaa inaanan anagu sadaqada cunin. xasan ibni cali oo sibdigii rasuulka ahaa, waa wiilkuu awoowaha u ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. weliba shantaas hadda aan tirinayno waa ninka ugu daran oo ugu adag xagga ekaashaha nebiga xasan sala allahu calayhi wasalam. ka kale waa jacfar ibni abi taalib. waa taariikhda ninkay ku socoto, waa sheekadiisa midka aan rabna inaan ka sheekayna jacfar. wamaa adraakum maa jacfar walaalayaal. jacfar ibn abi طaalib wahuwa akhuu amiiri اlmu'miniin cali bni abi طaalib. cali bni abi طaalib walaalkiis waaye. kaalaya walaalayaal dhammaan aan soo qaadano gobol ka mid ah xayaatadii jacfar ibni abi طaalib. see ku noolaa, say xayaatadiisu ahayd jacfar ibni abi طaalib. abu طaalib oo aabbahood ah, asagoo sara ka jira xagga qoomka sharaftiisa quraysh, mansilkiisa iyo derajada qoomkiisa uu ku leeyahay ay sarrayso, haddana wuxuu ahaa nin xaalkiisa hooseeyo
saaxibulciyaalna ah, ilmo badan leh, gacantiisana ay liidato, waana kaaba qabiil. xaalkiisaa sii batay oo sii xumaaday. sababtuna waxay tahay asagoo markii hore kuf ee istaag ku jiray ayaa abaar adag ku dhacday reer qoraysh. abaar baa timid taasoo quraysh ku kaliftay inay halaagsamaan xoolahoodii, inay ummadda ku xambaarta inay lafaha baaba'ay cunaan. walaalayaal, xilligaasay soo mareen. dhibaataa ku habsatay, abaar baa timid, mashaakil ah, heer ay gaareen inay lafihii horay u tuureen oo la cunay in dib dabka loo saaro oo biyo markaa lagu kariyo. reer bani haashim maalimaha waxaa ugu fiicnaa oo ugu dhaqaalo roonaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo adeerkii cabbaas oo adeerkii ah. cabbaas hadduu adeerkii noqday, abi taalibna uu adeerkii noqday, cabbaas iyo abi taalib maxay isku noqonayaan? walaalkii nebigana waa uu adeer. sidaa darteed ayaa waxaa dhacday oo bilaabatay inay labadaa nin ay ahaayeen labada qofood oo xagga maalka ugu aysarsan uguna fudud, bacdamaa nebi moxamed markaa khadiijo uu guursaday, hantina ay markaa lahayd. rasuulka sala allahu calayhi wasalam jaanib kasta ayuu ilaahay ka kaamilay. walaalayaal, abaartaa iyo dhibaatadaa jirtay intuu nebi moxamed soo baxay, intaan weli nebi laga dhigin, adeerkii cabbaas uu u yimid baa wuxuu yidhi, yaa cammi, adeerow, inna akhaaka abaa taalib, walaalka waa saaxibulciyaal. dadka waxyaabaha aad arkaysa oo qaxdiga iyo abaarta ayaa ku asiibay oo ku degay. juuc iyo baahi ayaa jirta adeerow, warnakeen aan u tagno oo ciyaalka faraha badan aan ka khafiifine. ma u jeedaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam miyaanan hadda tilmaamin wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin? ummad baa waxay u arkaanba nebi oo ay isticmaalaan waxyaalaha ay soo saareen xagga sancada kuwii u dambeeyey ee ah qalabka loo isticmaalo cilmiga casri. caqli xumo iyo diinteena oo nala ku diraya waay xaaladda noocaas ah. waa inaanan si fiican anagu weli u fahmin, waa anagoo si fiican weli u fahmin siiradii nebiga, siiradii saxaabada iyo waxyaabaha kale. adeerow soo bax, aan u tagna, walaalka waa saaxibulciyaal, dadkii baahiya haysa, mashaakil iyo dhib bay ku jiraan, aan ka khafiifina ilmihiisa. waa fikrad fiican, fikradda uu soo jeediyey nebi moxamed. fiiriya walaalayaal, sala allahu calayhi wasalam, aan ka soo khafiifino ciyaalka uu haysto. adiga mid soo qaado, anigana mid aan soo qaado, aan ka kafaalna adeer. cabbaas wuxuu yidhi, waxaad iigu yeertay khayr, wuuna u hoggaansamay. way tageen, waxay aadeen abaa taalib, waxay ku dhaheen, waxaan doonaynaa inaan ciyaalkaaga kaa khafiifino oo culayska ciyaalka ku saaran aan kaa qaadno gobolka mid ah, ilaa ay faydanto dhibaatada iyo mashaakilka ummadda asiibtay. wuxuu ku yidhi asagana, hal wiil haddaad ii dhaaftaan. ilan ciyaalka waa cajiib, qaarkood waalidka mid kasta midka u dhaga nugul ayuu jecel yahay. jacaylka waa in la simaa, laakiin mid baa jirta aan kaa go'in, mid baa jirta laabtaada aan ka baabi'i karin. sidaa darteed buu adeer wuxuu yidhi asagana, haddaad ii dhaaftaan caqiil ninka lagu magacaabo, waxaad doontaan sameeya oo ciddaad doontaan qaata. ilaa hadday dhacdaa, soomaalida laftigeeda way yaqaanaan. marka qof saaxiibulciyaal uu yahay, midna waxaa loo diray habaryartiisa maaha, midna eedadii, mid adeer baa qaata, midna abti. waryaa bax adeer u tag, markaasuu la koraa ciyaalkii ilma adeertay ahaayeen. saa darteed soomaalida laftigeeda way ka jirtaa xaaladda noocaas ah, way ka socotaa xaaladda. saa darteed waa arrin soo jireen ah. nebi moxamed xaaladdaasuu tilmaamay. adeerna wuxuu yidhi, haddaad caqiil ii dhaaftaan, kaa doontaan qaata. nebi moxamed wuxuu soo qaatay cali bna abi taalib radia allahu tacaala canhu, asagoo sabi ah, aadna markaa u yar. gurigiisuu keenay. cabbaasna jacfar buu la tegey, ciyaalkiisa ayuu ku daray. waa la kala qaatay labo. wax un baa ka khafiifaya. maalinta dharka ciidda lasoo iibinayo, marka 4 cunug ay kuu joogaan oo dhar ciid ay kaa rabaan, iyo marka mid adeer kaa qaata midna abti kaa qaato, laba ay kuu soo haraan, isku mid miya? waa maya, soo maaha. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala caqliga iyo garaadka iyo arrintaa nebi moxamed ka keenay sala allahu calayhi wasalam. jacfar waxaa qaatay cabbaas,
nebi moxamedna cali ayuu soo watay. cali kama uusan suulin nebi moxamed inuu la noolaanayo oo gurigiisa uu joogo oo meesha uu ku barbaarayo ilaa nebi moxamed ilaahay soo diray subxaana wa tacaala. nebi moxamed markuu cali korinaya nebi ma aha, markuu gurigiisa joogo nebi ma aha, wuu la noolaa, kama uusan suulin inuu la sii joogo ilaa nebiga la soo saaray, diin xaq ah lala soo saaray. idan cali meeshaa wuxuu ku manaystay uu ka helay inuu noqdo awala man aamana min alfityaan. allahu akbar. waa cali ninka ugu horeeya ee fityaan ah ama dhallinyaro ah ama caruur ah ee nebi moxamed rumaysaa. jacfar ibni abi aalib wuxuu la joogaa adeerkii cabbaas ilaa uu koray, asagana uu islaamay, waistaghnaa canhu uuna ka kaaftoomay. waa jacfar. sidaa darteed jacfar wuxuu ku soo biiray asagana kooxdii nuurka. wuu sii koray, wuu guursaday asagoo mataqaanaa da'yar. jacfar wuu ka kaaftoomay, wuu ku soo biiray, macnaha wuu rumeeyey. asagana dadkii ilaahay aaminay ayuu galay jacfar ibni abi aalib. wuxuu ku soo biiray kooxdii nuurka ilaahay qaadatay. wuxuu guursaday gabar lagu magacaabo asmaa binti cumays. asmaa binti cumays waa dariiqii ugu horreeyey, waa waddadii ugu horraysay islaamkaba ayay markaa rumeeyeen. mar allaala markay islaameen oo ay ku islaameen, waxaa soo islaamiyey oo sabab u ahaa abuubakarni sidiiq. waayo abubakar asagana waa dadkii ugu horreeyey xagga rijaasha rumeeyey. khadiija waa qofkii ugu horreysay xagga dumarka rumaysay. zayd waa qofka ugu horreeyey xagga cabiidiinta ama moolayaasha rumeeyey. sidaa darteed abubakar ninka lagu magacaabo meel ma fadhiisanine wuxuu bilaabay inuu nebiga garabkiisa istaaga sala allahu calayhi wasalam, inuu ummadda asagana diinta ku hogaamiyo, inuu asagana ummadda daaci u noqdo ee uu soo jiida dadka markaa lagu kalsoon yahay. asma bintu cumays iyo jacfar ibni abi aalib oo nin inaagtiisa ah, labadooda waxaa soo islaamiyey oo ay ku soo islaameen abubakar gacantiisa. waa intuusan rasuulku gelin daar arqam. daarta arqam waad fahmi kartaan, waa daar ku tiilay buurta safa agteeda. sidaa darteed muslimiinta ayaa meesha wax lagu beri jiray. nebiga meesha ayuu geli jiray sala allahu calayh wasalam. islaamka bidaayadiisa iyo markuu islaamku cusbaa bannaanka isma soo dhigin. ilaan tab baa loo baahanya, xeelad baa loo baahanya, dacwo sira ayaa socotay. qof walba qofka uu ku kalsoon yahay ayuu soo kaxayn jiray, markaasuu daartii arqam ibnu arqam laysugu keeni jiray. waa daar ka fog magaalada, saa darteed waa daar dadka indhahooda inay dhaqso aragto aan markaa munaasab ahayn. daartaas intuusan nebigu gelin bay ahayd. waxaa laga qaadanayaa meesha dadkii ugu soo horhoreeyey ee islaamay inay markaa ahaayeen. wiilkaa dhallinyaraha ah walaalayaal ee reer haashimi ah, asaga iyo gabadhiisii uu guursaday shaabadda ahayd, waxay la kulmeen qoraysh dhibkoodii. allahu akbar. waxay la kulmeen cadaadiskii adkaa ee dadka muslimiinta lagu haayay. waxay la kulmeen dhibaato aad iyo aad u adag. waxay dhadhamiyeen badshigii iyo cadaabkii iyo xanuunkii iyo garaacitaankii dadka muslimiinta lagu haayay intay magaalada maga joogeen, mustadcafiintan ay markaa ahaayeen. fa sabara cala aladaa. wuu ku sabray jacfar. jacfar waa uu sabray. asma binti cumays ayaduna way u sabirtay dhibaatooyinka iyo mashaakilka markaa jiray. sababtay u sabreen maxay tahay walaalayaal? dhib ani laygu haayo oo mar kasta lay dhibaayo oo mashaakil laygu haynaayo oo markaan salaada tukado iyo markaan laa ilaaha ila allah dhaho iyo mar allaala markii aan taqaanaa dhaho nebi moxamed baan aaminay oo lay dhibaayo oo lay garaacayo, sababta aan u sabrayo maxay tahay? waa inaan isweydiino. maxaan u sabraa? maan iska daayo? maan iska dhaafa oo bannaankayga maro? walaalayaal, waxay u sabreen, uuna u sabray, waxay ogaadeen asma bintu cumays iyo jacfar ibni abi aalib waddada jannada inay ku daadsan tahay shawk, qodax. waddada jannada la aadayo yaa waxaa ku qubsan oo lagu qubay oo lagu daadiyey qodxaan. waxaa lagu wareejiyey bilmakaarih, wax kastoo nafta ay nacayso. xaaladda noocaas ah ayuu gartay, uu ogaaday qodaxdan duraysa inay dheef ka dambayso, dhibkan ku dhacay inuu janno ka dambeeyo.
daacada ilaahay iyo khayrka qaadashadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa la aaminayo ee markaa la rumaynayo in khayrka iyo wanaagga taa uu ku jiro, xaaladaasay markaa ogaadeen. taa marka waxay kaliftay inay sabraan, inay dulqaataan, inay wanaagga iyo khayrka ku dadaalaan, inay noqdaan dad sabra oo diinta ilaahay markaa ku sabraa. laakiin xaaladda noocaas ah oo sabirkaa adag ay qaateen nimanka Quraysh la yidhaahdo, kama aysan jeedinin Jacfar iyo naagtiisa dhibaatada iyo waxyaabaha ay meesha ku hayaan iyo waxa ay ku samaynayaan ay dhadhaminayaan cadaabka ah. waayo mar kastii la cadaabo waxay dhadhaminayaan ladal cibaada u macaanaanaysa. mar allaala markii ay u fadhiistaan maqsad kasta iyo meel kasta oo dhibaato kasta markaa la gaarsiiyey oo ay ku sii adkaatay, ayaa Jacfar intuu u tegay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka isti'daan qaatay inuu isaga hijroodo, isaga dhex baxo, asaga iyo sawjadiisa iyo jamiico saxaabada ka mid ah ayna aadaan dhulka xabashada. dhulka Etoobiya rasuulkana waa u fasaxay sala allahu calayhi wasalam. aad iyo aad bay maxsuuniin u ahaayeen. dhulka aad ku dhalatay ka tag, dhulka aad ku dhalatay ka bax. weliba ayagu waxay nagu dhaamaan, waxay u baxayaan ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala. annagu waxaan u safraynaa oon u tahriibaynaa oon u cararaynaa xaggee nolol ka heshaan iyo xaggee dollar ka heshaan, soo ma aha. ayagu waxay u cararayaan xaggee janno laga helaa. waa bilcagsi. annagu waxaan u cararaynaa oo aanu ordaynaa waxay tahay sii qaxooti ku noqonaa oo gaalo u tagnaa oo ay baasaaboorradoodii waxyaabahooda kale ay noo siiyaan oo aan dheef dhaqaalo uga helnaa. ayagu waxay u cararayaan sidee ilaahay raalli idinkaga noqdaa subxaanahu wa tacaala. annagu waxaan u cararaynaa saan aqalo iyo daaro iyo guryo usoo dhisan lahayn markii lacag fara badan aan soo helno. ayaguna waxay u cararayaan sidee aakhiro ama ilaahay agtiisa daar laydinkaga dhisi lahaa subxaanahu wa tacaala. allahu akbar. waa la kala tegay walaalayaal, waa la kala tegay. muujeedaa noloshii xaqiiqda ahayd, raggii nujuumta xidigaha ee lagu dayanayay rasuulku waa u idmay sala allahu calayhi wasalam, aad buuna uga murugaysnaa. horay ayuu u fasaxay uu yidhi, war qof kastoo meesha ku noolaan waayo bax oo dhulka xabasho tag, boqor baa jooga caadil ah. diinta islaamka cadaaladeeda waxaa ka mid ah ninkan waa gaal, ha la hoos mariya ma jirto, qof kasta xaqiisay siinaysaa. najaashi asagoo gaal ah markaa oo aan weli soo islaamin ayaa diinta islaamku waxay u qirtay inuu boqor caadil ah yahay. kama tagta cadaaladda, qof kasta xaqiisay siisaa. waatay soomaalidu dhahdo gaal dil gartiisana siisoo ma aha. saa darteed bacdamaa ilaahay uusan weli rumaynin amase uusan nebiga risaaladiisa weli rumaynin, lama dhihin, lama caayin, waxna lagama gaarsiinin. wuxuu ku yahayna waa lagu sheegay, boqor cadaalad badan inuu yahayna waa loo qiray. intaa wixii ka dambaysay walaalayaal, aad bay ugu adkeed inay baxaan oo ay ka tagaan oo ay faaruqaan guryahooda, inay faaruqaan meelihii ay ku barbaareen. meeshii markuu yaraa uu ku dhashay xundhurtiisaa ku dugan bay dhahaan soomaalida, uu ku soo barbaaray, uu dhallinyaradiisu kula ciyaari jiray, uu mataqaanaa xaaladiisu ay sidaa ahayd. way ku adkaatay, laakiin waxay noqotay arrintaa arrin laga fiirsan waayey. waa mar allaala markii Quraysh dhibkeedii uu ka batay way iska baxeen. wuu tegey, wuxuuna raacay muhaajiriinta qoladii ugu horhoraysay. jacfar ibni abi taalib ayaa madax u ah. waxay ku sugnaadeen jacfar ibni abi taalib iyo intii muslimiin ah barbaarintii iyo kanafkii iyo ilaalintii najaashi, boqorkii caadilka ahaa ee saalixa ahaa. meesha waxay ka dhadhamiyeen oo ay ka heleen baa la yidhi طacma alamni, aaminnimo kan u macaan badan dhadhankiisa. allahu akbar. way dhuumanayeen markay tukanayeen, shacaabtii kaymahay gelageli jireen, laakiin cayaan bay ku tukanayaan. waxay ku dhex caabudi waayeen ilaahay subxaana wa tacaala qoomkii ayagu ay ka dhasheen dhexdooda. waxay ku caabudayaan dhul qurbo ah, dhul ghariib ah, dhul aysan cidna ka aqoonin, dhul aysan dhaqankooda aqoonin. kiyay markaa tageen, markaasay dhadhamiyeen طacma alamni. waxay ku raaxaysteen xalaawada cibaadada ayadoo wax dhibaataynaya aan markaa la arkin. laakiin Quraysh
mar allaala markay ogaatay kooxdii muslimiinta ahaa inay farxadeen, meeshana ay tageen, najaashina tama'niino ay ka heleen, diinkoodana amni fiican ay u heleen, caqiidadoodu ay markaas sugayaan, waxay sameeyeen shirqool kale. bal waa laga tegey ma iska dhaafaan? war waa laga dhaqaaqay oo meel kalea la tegey, waxna laguma haysto ayaga, lamana dhibaataynaye may faraha ka qaadaan. atawaasaw bihi bal hum qowmun taaguun. waa kaafiriinta maanta joogtaa. si kastaysan kaaga harin intaad caqiidada islaamkaa haysato, intaad daacada ilaahay ku dadaalaysa subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed ayaa waxay sameeyeen mu'aamaraad kale, waxay sameeyeen shirqool kale, waxay sameeyeen arrin aad iyo aad u falxumo ah, taasoo isku talagaleen inay dib u soo celiyaan oo sijni xabsi weyn ay markaa geliyaan. umu salama ilaahay ha ka raali noqdo, waxay ku jirtay dadkii ayaguna baxay, ayada iyo ninkeeda abi salama. waa qoysas wan wanaagsan, waa qoysas fiicfiican, waa laysku xiran yahay walaalayaal. maanta waxaa lagu leeyahay odaygu wuu diidan yahay inaan ciyaalka wado, maxaan sameeyaa? naagtu waxay rabtaa inay ciyaalkii kaxayso hooyo, aabba waa diidan yahay, aabbaa ogol, hooyaa diidan. xaaladda noocaasa ma jirta meeshaan. jacfar ibn abi taalib iyo asmaa binti cumays way israaceen. cuthmaan ibnu cafaan iyo zawjadiisa nebiga gabadhii u dhalay way israaceen. ruqaya, abi salama iyo umu salama way israaceen. anaa diidaya, anaa saa yeelaya ma jirto. diinta islaamkaan u halgamaynaa, ciyaalkeena wax baranaynaa oo meel amniya aan geysanaynaa oo diinta caqiidadooda ay ku bartaan, muwaafaq baa lagu yahay. laakiin annaga minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira. minkum waa ninkii naagta maanta isqaba, waa hooye iyo aabe. minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira. kuna wuxuu leeyahay maya, ciyaalka aan la baxsano oon khayr iyo wanaag meelay ku bartaan aan geyno. kuna wuxuu leeyahay maya, lacagtaa naga go'aysa. soo maaha walaalayaal? lacagtiyaa go'aysa. minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira. sidaa darteed baan ilaahay ka baryaynaa dad aakhira doona inuu ilaahay naga dhigo, dad ilaahay aakhira doona inuu naga dhigo. waddo kastoo janno ilaahay aan ku gaarayna inuu ilaahay noogu horseedo, uu noo saqiro, uu noo fududeeyo. hooyo iyo aabba in ilaahay labadooda qalbigooda uu ku beero aakhira jacayl, uu ku beero ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala. umu salama aan u dhaafna, ayada wax yar noo sheekayn doontee. aan majaalka uga baxo umu salama, waayo waxay aragtay iyo waxay soo tabisay ha inoo sheegtay. waxay tiri mar allaala markii dhulkii xabashada aan degnay oo aan tagnay, waxaan la kulannay khayrkan deriskan u khayr badan, waxaan ku sugnaanay amnikan u sarreeya oo ugu qiimo badan oo markaa ilaahay lagu caabudi karo subxaanahu wa tacaala, oo diinteena aan ku raaci karno. umu salaama ayadoo sii hadlaysa waxay tiri, rabbigeen subxaanahu wa tacaala ayaan caabudnay anagoon nala dhibaynin, anagoon wax dhibaatana la maqalsiinaynin. markiise qoraysh arrintaa ay maqashay, mu'aamaraad bay sameeyeen. najaashi waxay u soo direen 2 nin oo jaldayn ah, xoog badan. maxay ku xoog badnaayeen xagga gaalnimada? maxay ku xoog badnaayeen muslim nacaybka? waxay ku xoog badnaayeen xagga kartida iyo waxoodoo dhanba oo raggooda ka mid ah. yay kala ahaayeen? waa camr ibn alcaas iyo cabdullaahi ibn abi rabiica. waa 2 nin. waxay u soo dhiibeen hadiyo fara badan, ay dhaheen najaashi u geey iyo ciidamadiisa, waxaadna u sheegtaa in wiilal iyo gabdho diintoodii soo nacay, taadana aan soo gelin, dadkoodii eheladoodii soo xumeeyey, khilmaan ah, doqomo ah, diintoodii ka soo ishay, inay boqorow gurigaaga soo galeen. sidaa darteed iska soo ceyri, annaga noo soo dhiib. waxaana soo diray qoomkooda kuwa ugu sharafta badan, annaga ayagaa og caqiidadooda iyo waxa ay yihiin. sidaa darteed sidaa dhaha ee raggaa noo soo celiya. muslimiintii hadda le heshay waxoogaa amni ah, ka soo baxday cadaadiskii dhibaatadii. maca daalika jacfar ibn abi taalib uu dhallinyaro u yahay, oo meesha uu yimidow is yidhi haddaad meel fiican bal haba iska ahaatee dhul qurba ah yaad ilaahay si fiican u caabudi kartaa. imtixaan labaad ayaa haddana markaa yimid. imtixaan labaad ayaa yimid. wiilashii way soo baxeen, nimankii najaashi hoos joogayaashiisi bay hadiyadii ku safeen.
si ay marka hore intay mataqaanaa xaaladaas ay tahay oo ay markay berita ay is arkaan uu kala hadlo ee boqorkay u sheegaan oo ay dhahaan nimankan waa runtood. xaalku markuu meeshaa marayay najaashi subaxii wuu soo fadhiisay meesha. arrintii bay ku fureen. rabakii bitaariqada ahaa amase hoosjoogayaashiisii ahaa waxay dhaheen run bay sheegeen boqorow, dadkan qoomkoodii ayaa og, ayagaa ku cilmi badan, u celi xaggooda. laakiin boqor fiican buu ahaa, wuu carooday caro daran. markaasuu yidhi ilaahay ayaan ku dharti celin maayo, mana ku sallimayo ilaa aan u yeero oo aan su'aalo wax allaala waxa lagu sheegayo inay run tahay iyo inay been tahay. haddii arrinta labada nin ay run noqotona waan ku sallimayaa, haddii arrintu si kale ay noqotona ragga deriskaygay ahaanayaan, anayna markaa ila joogayaan. umu salama waxay tidhi akhbaar baana loo soo diray. allahu akbar. ka warrama walaalayaal, waddamada aan ku noolnahay haddii dhibaato nalaka gaarsiiyo oo nala yidhaahda kaalaya waa laydin wacayaa, maxkamaddaa laydinka rabaa. say xaaladeenu noqonaysaa walaalayaal, say arrinteenu ahaanaysaa. jacfar weli imtixaana ku socda radia allahu tacaala canhu. radia allahu canhu waa imtixaamanaya, weli waa lis imtixaamayaa walaalayaal. am xasibtum an tadkhulu ljanna walamaa yaclam illaahu aladiina sadaquu. ilaa ilaahay ogaada waxa qalbiga ku jira, ilaa ilaahayna ogaada iimaankeena ma been baa mase waa run. maan janno iska gelaynaa walaalayaal. aamanaa aamanaa aamanaa, tukanay, soonnay, salaadnay, ma lagu aruurayaa janno? weyne imtixaankii. awi imtixaankii, wixii garaadada lagu bixin lahaa, wixii shahaadada lagu bixin lahaa, wuxuu ilaahay qofka ku sharifi lahaa subxaana wa tacaala. ma ogtihiin marka hore qofka marka ilaahay uu jeclaado waa la imtixaamayaa. imtixaanka markuu isdhaho waad ka baxday oo maantaad ka tilaabsanaysaa, yaa imtixaankii ka adag haddan ilaahay saaraya subxaana wa tacaala. waayo ma taqaaniin, xidig baa la rabaa in loo xiro. xidig soo askariga markii uu si fiican halyey u noqdo, gaashaan soo meesha looguma xiro iyo laba xidig ah, waa gaashaan la sare soo maaha. ilaahay wuxuu doonayaa marka inuu meesha wax kugu xiro. see lagugu xirayaa marka? waa lagu ogaadaa, waa lagu imtixaamaa. raggan dhiidhiil ayagoo sariirahooda jifa walaalayaal, janno laguma bishaaraynin. yaa fulaan anta fi ljanna, anta fi janna, anta fi ljanna. kulli sariirahooda ay jiijiifeen. maxay ku heleen? imtixaankay ku gudbeen. ma ujeedda hadduu imtixaan ka baxay jacfar ibni abi taalib. waa dhallinyaro, suur intuu xirto, suunka dhexda ka xirto, kaba kooya uu xirto, iyo meelaha qaxwada lagu cabo intuu fadhiisto, baalashle intuu u waco, ama midka kabaha buraashuu dhihi lahaa iyo buraash soo ma aha, oo kufay shubto. diintan la isku dhibaayo iyo mashaakilkeeda maxaa gelinaya? ma jirto. laakiin wuxuu ogaaday nolosha dhabtaa inay taa tahay walaalayaal. wuxuu ogaaday xaqiiqdaba inay sidaa tahay. adduunku inuu yahay adduun daciif ah oo hayin ah. xaaladaasoo markaa gartay. taa marka waxay kaliftay inuu imtixaanka ku sii socdo weli. adeeg baa loo soo diray, kaalayaa la yiri. way tashadeen, waxay dhaheen boqorka wuu noo wacayaa, maxaan samaynaa? maxaan samaynaa haddaan beri u tagno boqorka? wallaahi aan caddaysana xaqeena, ama hana ceyriyo, ama hana dilo, ama hana dhaafo, ama hana soo dhoweeyo. shalayba dadkeedii baan ka soo tagnay, ilahay dartii baan oga soo tagnay. haddii boqorka naga waraysto oo waxna weydiiyo sida nebi moxamed wax noo baran ugu sheegaynaa. haddii la rabo hanala ku naco, haddii la rabo hanala ku dilo walaalayaal. imtixaan. intaa wixii ka dambaysa umu salama waxay tiri najaashi baan soo aadnay. mar allaala markii aan meesha tagnay oo aan fadhiisanay oo arrinteenii iyo wax allaala wixii mataqaanaa meesha joogay iyo culimmadiisii kutubahoodii ay markaa fureen, oo annagiina albaabkii aan markaa ka soo galnay, waxaanba aragnay camr ibn alcaasi, cabdullahi ibni abi rabiica. inkaar helayaale maxaa soo raaciyey? waa dadkay ka soo carareen. dad waxaa jira kula dagaalama adiga, waxay kula dagaalamaan aysan aqoonin. waa dad qofna mabda ahaan buu kugula dagaalamayaa, ninna maba yaqaanba. adoo jidka mar iska kaacayaya, saa baa tahay, kan baa tahay, intaa baa tahay. wax haddaba ku kalifaya iyo wuxuu ka istafiidayo iyo wuxuu haddaba isleeyahay waad helaysaa ma jiro. qof waxaa jira hunguri kuu raacaya adiga. suraaq ibni maalik oo kale ma aragteen? markay gaaladu dhahday abubakar iyo nebi moxamed, ninkii keena boqol halaad baan madaxooda dhignay. intuu ceersanayey fars buu wataa, wuu ka dhacaa, wuu soo kacaa,
wuu ka dhacaa, wuu soo kacaa, war ammaan geliya, war saa i yeela, qoryihiisuu la soo baxaa, ka sharta laha u soo baxaa, wuu beeniyaa, waa sii ordaa. dhibkaa muxuu u marayaa? asii nebi maxamed maxaa ka dhexeeya sal alla alay wasalam? asii abubakar maxaa ka dhexeeya? waa waxba. muxuu u raacayaa? muxuu u dabagelayaa? boqol halaad hel soo maaha. dad waxaa jira kula dagaalamaya, wuxuu kula dagaalamaya usan noqon, xataa xoolihii hunguraysan markaa ahayn. wuu iska kaa caayayaa. gaalo ku haysato arkay wuu iska kaa haystaa. ninku caynaya maqlay wuu iska kaa caayayaa. wuxuu maqlay wax ilaa hadda aan ka haleeyey iyo wax aan ka sameeyey iyo wax aan u dhimay iyo waxaan u sameeyey malaha. waa igu koontaro bis. haddii la yidhahdo ninkan maxaad isku haysataan, ma ka jawaabi karo. ku hunguri buu saasoo kale ku raacayaayo. waa sidii suraaq ibni maalik oo kale. labadii nin ayaan ka aragnay bay tiri, waa camar ibn alcaas iyo cabdullahi ibn abi rabiica. mar allaala markii meeshii aan soo fadhiisanay, najaashi hadalkiisii ugu horreeyey wuxuu ahaa, maa haada addiin, war diinkan maxaa waaye aad keenteen oad dadkiini ku faaruqdeen oo qoomkiini aad ku nacdeen oo diinkaygana aadan u soo gelin, diin kaloo adduunka yaalna aad u geli weyseen. jacfar ibni abi taalib qisada ninkay ku socoto ayaa farta taagay. wuxuu yidhi boqolow dhegayso, anagu qoom baan ahayn horta, jaahili ehelkoodii ah. dhagxaan iyo qoryana waan caabudi jirnay, meydkana waan cuni jirnay, fawaaxishtii ceebahana waan la imaan jirnay, raximada waan goyn jirnay, deriska waan xumayn jirnay. keena qawigaa wuxuu layn jiray midkeena daciifka ah. saasaan ku sugnayn, nolol xumadaasaan ku jirnay, ilaa ilaahay noo soo diray rasuul annaga naga mid ah, nasabkiisa aan naqaano, runtiisii ammaanadiisii dhowrsanaantiisa. ilaahay ayuu noogu wacay inaan waxidno oo aan caabudno. wuxuu naga fujiyey asnaamtii iyo dhagxaantii aan caabudaynay, annaga iyo qoomkeennaba ilaahay sokadiisa. wuxuuna amray hadal run ah inaan ku hadalno, inaan ammaanada gudano, inaan qaraabo xiriirino, inaan jaarka wanaajino, inaan iska dhaafno maxaarimta, inaan dhiigaga ilaalino. wuxuu naga rabay fawaaxishta, hadalka beenta ah, maalka agoontoo la cuno iyo gabdhaha saalixaadkoo la caayo. wuxuuna amray inaan rabbi keligii caabudno, cidnana aan u shariig yeelin. wuxuuna amray inaan salaada hagaajino, sakadana aan gudano. wuxuuna amray wax kasta oo khayr ah waa rumaynay, waan aaminay, waan raacnay. wax allaale wuxuu ilaahay xaggiisa ka keenay waan xalaalaynay, wuxuunuu xalaaleeyey. waan xaaraantinimeynay, wuxuu naga xaaraantinimeeyey. qoomkeenii boqorow, mar allaala markaan intaa samaynay way nagu xadgudbeen, wayna cadaabeen, wayna dhibeen. ashadd alcadaab bay nagu sameeyeen si ay diintiina nooga fidneeyaan oo ay noogu celiyaan dhagxaanta cibaadadooda. markayna dulmiyeen, oyna qahareen, oy naga xoog badiyeen, oyna ciriiriyeen, oo annaga iyo diinkeenii ayna kala dhex galeen, boqorow adigaan kuu soo cararnay, waxaan kaa dooranay wax allaala wixii kaa soo haray. waxaan rajaynaynaa oon jeclaysanay derisnimadaada, waxaanana rajaynaynaa inaana nala ku dulminin agtaada. jacfar khatiib, faseexo, hadal fiicnaan. hadiyad lama bixinin, ujeeda raggii hadiyad bay keeneen, waxyaabo fara badan baa la bixiyey. bataariqadii iyo shiiqyadii hoose asi ka horeeyey waa la dharjiyey, jeebkaa loo buuxiyey, cimaamadaa loo keenay, kuufiyadaa loo keenay, kobaa loo keenay, waxyaabo kastaa la siiyey. raggii muslimiinta ahaa rishwa ma aysan bixinin, hadiyana ma bixinin. kalaam xaq ah ayay ku hadleen, hadal dhab ah ayay ku hadleen. jacfar ibni abi taalib ayaa u hadlay. umu salama waxay tiri hadalka aan u dhaafee. najaashi saasuu u milicsaday jacfar, markaasuu yidhi wax ma ka haysaa waxa nebigiin idiin keenay? qaala nacam. markaasuu akhriyey kaafhaa yaa cayn saad, dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. انت كبعد مركوح أقريي. أم سلمة وحي تري فبكى النجاشي وأويي وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. إلهي بسودجي سبحانه وتعالى يكو سودكت آيات نجاشي. وإن من أهل الكتاب أهل كتابك لمن يؤمن بالله وكمت مت إله رميسا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم
wixii idinka laydin soo dejiya rumaysan, wixii ayaga loo soo dejina rumaysan, khaashiciina lilaahi ilaahay u khushuucaya subxaanahu wa tacaala. waa ooyey najaashi, biyihii indhihiisa ka soo baxay garkiisa ay qooyeen. radia allahu tacaala canhu. wa ina min ahli lkitaab laman yu'min, ilaahay buu rumaynaa wixii kitaabka qur'aanka lagu soo dejiyo rumaynaa, wixii nebi ciise lagu soo dejina wuu rumaynayaa. khaashiciina lilah laa yashtaruuna biaayaati illaahi hamanan qaliila ulaa'ika lahum ajruhum cinda rabbihim. abaalgudka ila xaggiisa ku leeyahay subxaana wa tacaala. aaway labadii oday, aaway cabdullaahi ibnu abi rabiica iyo camr ibni alcaas, aaway maxay samaynayaan? ninkay ahaayeen hadalladii muslimiinta ay ku hadleen iyo kalaamka ilaah ee lagu dul akriyo la oynayaa, indhihiisaa biyo ku soo daadanaya. walaalayaal, umu salama hadalkii sii wadatay waxay tiri waa ooyey najaashi ilaa indhihiis biyihiisii ka soo baxay ay gorkay sii qooyeen. raggii meesha fafadhiyey rishwadii iyo xoolihii qaatayna way ooyeen ilaa kutubtoodii ay qoyday markay maqleen kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala. saa darteed baa najaashi wuxuu noo yidhi, mar waxaan aad hadda keenteen iyo wixii nebi ciise lagu soo dejiyey, wixii nebigiina lagu soo dejiyey, mishkaad waaxid bay ka soo baxeen, hal dariishad, hal shubaakay ka yimideen buu yidhi radia allahu tacaala canhu. intaa ka bacdi camar iyo saaxiibkii buu saa u milicsaday. intaliqaa buu dhaha, ka cawaryaa, ka istaaga meesha. falaa wallaahi laa usallimuhum ilaykuma abadan. baxa, ka taga meesha, waxaan idin dhiibaayo malehe, socda. in allaha yudaaficu can aladiina aamanuu. in allaha yudaaficu, ilaahay waa difaacayaa dadka iimaanka leh, dadka mu'miniinta ilaahay waa difaacayaa subxaanahu wa tacaala. war inuu ilaahay difaacad rabtaa inaad dhibaato gaarsiiso, war in ilaahay saas ugu xeeran baad rabtaa inaad dhibaato gaarsiiso. qof kasta oo salaad subax ku tukada jamaaca fahwa fii dimmati illaah, ilaahay magantiisuu ku jiraa subxaanahu wa tacaala. war faraha ka qaada dadka salaad subax tukanaya, ha xamanina, ha caayina, dhibaato ha gaarsiinina, qabiilkooda ha caayina, waxba ha ka sheegina. dimma ilaahay bay ku jiraan, magan ilaahay bay galeen. war qofka dalbaya oo raadinaya qof magan ilaahay gadaashiisa ku jira, raba intuu gacanta saas u laala uu soo bixiyo, hadduu ila kulmo buu yidhi ilaahay, naarta jahannaman ku afgembiyaa subxaanahu wa tacaala. subxaanahu wa tacaala. baxa ka istaaga agtayda buu yidhi, waxaan idinku sallimaayo markaa ma jirteen. umu salama waxay tiri, markaan ka soo baxnay najaashi agtiisa, camar iyo saaxiibkii way la ballameen. waxay dhaheen, war nin raggaa maba ka tegayniba, war intaan baa dhacday ma iska soo baxaan walaalayaal, may iska soo baxaan. kaafiriinta muslimiinta cadow mubiina ayay u yihiin, sida ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala. kaafiriinta kaanuu lakum caduwan mubiinan, cadow cad bay idin yihiin buu ilah subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed bay dhaheen, wallahi inaanan ka tegaynin, arrin kalaan u sheegaynaa oo boqorka dhaqaajinaysa. ileen nasaare waxay aaminsan yihin ciise inuu ilaahay yahay, soo ma aha. waxaan dhihi doonaa nimankan waxayba aaminsan yihiinba ciise inuu addoon ilaahay yahay. sidii baa dhacday. haddana waa loo yeeray, isla jacfar baa haddana hadlay radia allahu tacaala canhu. boqorka wuxuu ku yidhi, war kuwaan wuxuu ku yidhi, waxaad sheeganaysaan inaad ciise addoon ilaahay yahay, ka warrama. markaasay dhaheen, ciise sida ilaah nebigeen uu naga yidhi ayaan dhahaynaa, waa addoon ilaah, ciise bnu maryam. qowl cadiim baad ka dhahaysaan. umu salama markii arrintaa ay dhacday waxay tihi, murug badan baa nagu dhacday, taan waa tii lagu bixi lahaa. maxaan dhahnaa? waxaan dhahaynaa wixii nebi moxamed nooga sheegay, waxaan dhahaynaa waa addoon ilaahay, waana rasuul ilaahay. najaashi markuu u wacay ay u galeen, raggiina meesha ay fadhiyaan weli, ayaa waxaa dhacday inay isdhaheen, maanta waad ka rayseen labadii shalay la cayriyey, maanta waa laydinku sallami doonaa. markaasuu najaashi yidhi, maada taquuluuna fii ciise bni maryama? su-aal adka soo maaha, waa kala bax walaalayaal. jacfar ibni abi aalib wuxuu yidhi, inamaa naquulu fiihi maa jaaa bihi nabiyuna. nebigiina muxuu idin yidhi? wuxuu yidhi, inahu cabdullah wa rasuuluhu wa ruuxuhu wa kalimatuhu allatii alqaahaa ilaa maryama alcadaraa albatuula. mar allaala markuu najaashi maqlay qowlkii jacfar, intuu dhulka ku dhuftay gacanta ayuu yidhi, wallaahi maa kharaja ciisa bnu maryama camaa jaaa bihi nabiyukum miqdaara shacra. hal tin kama maqna buu yidhi, miqdaara shacra wax la eg. markaasay dhaheen, sankay ka hadleen nimankii bataariikhdiisii ahaa.
way hiinqeeyeen. markaasuu ku yidhi ayagoo inkiraya qowlkii ay jibnaashi ka maqleen, war weligiin khiikhlaaya buu yidhi, weligiin waxaad doontaa sameey, war weligiin hooska ka guuxa. markaasuu intuuna soo firiyey buu yidhi idhabuu fa antum aaminuun, warbaxa Jacfar ibn Abi Taalib iyo dadkiisiiyow, aaminiin baa tihiin. ninkii idin caaya waa ganaaxayaa, ninkii idin dhabaateeya waan ganaaxayaa, ninkii dhib idinku banbaxana waa la ciqaabayaa. allahu akbar. wallaahi maa uxibu an yakuuna lii jabal min dahab. jacfar baa dhahaya, waxaa dhahaya aan dhahay najaashi, ilaahay baan ku dhaartay ma jecli buur dahaba in lay siiyo, kama jecli in dhib idinka idin asiibo ama xumaan. dhibkii adinka laydin gaarsiin lahaa ayaa ii xun buu yidhi, in jabal dahab ah lay siiyo iyo idinkoo laydin dhibo. waxaa necbahay buu dhahay idinkoo laydin dhibo, weligeed yaan buur dahaba lay siinine. radia allahu tacaala canhu. intaa ka bacdi camar iyo saaxiibkii buu malicsaday, markaasuu yidhi war u celiya hadiyadooda, wax danoo aan ka leenahay markaa ma jirtee. umu salama ayadoo faraxsan bay tiri, camar iyo saaxiibkii way baxeen ayagoo qalbi jabsan, ayagoo dulloobay, ayagoo khaasiray, ayagoo dhib ku dhacay, ayagoo xaaladooda aysaa noqotay. waalcaaqibatu lilmuttaqiin, ciribta dambe dadka muttaqiinta iskale. waa las imtixaamayaa keliya maahane, ilaahay waa noo gargaaraya subxaana wa tacaala. annaga waa iimaankeena la eegayaa maahane, ilaahay nasri iyo guul buu nala garab taagan yahay. innaa lanansuru rusulanaa waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad. ballan buu qaaday subxaana wa tacaala, laa yukhlifu allahu lmiicaad. laakiin aan ka soo baxno asbaabtana lagugu gargaari lahaa, asbaabtiina lagugu gargaari lahaa. annagaa soo harnay bay tiri, waxaan nagaanay najaashi agtiisa daartan u khayr badan iyo derisnimo, midda markaa u fiican. intaa wixii ka dambeeya Jacfar ibni Abi Taalib iyo sawjadiisa waxay deganaayeen arlada najaashi 10 sanawaad, 10 sano, ayagoo aaminiin ah, mutma'iniin ah. sanadiis 7aad ee hijrada markii la gaaray, dhulkii waxay ka soo baxeen xabashada, waa Jacfar iyo xaaskiisa. koox muslimiinta ka mid ahna way la socotay, waxay soo aadeen Yathrib ama magaalada Madiina. mar allaala markay soo gaareen, rasuulku maalintaa wuxuu ka soo noqonayay isla markaa Khaybar, waa sanadii 7aad. Khaybar ayuu ka soo laabtay mar allaala markuu ilaahay u furay rasuulka. nebiga aad ayuu ugu farxay kulankii Jacfar faraxan shadiidan. nebi maxamed jacfar la kulankiisa ayuu ku farxay ilaa ay dhaheen dadku waxay kala ogaan waayeen muxuu rasuulku aad ugu farxay, ma Khaybar furitaankeeda am biquduumi Jacfar, mase Jacfar soo gelitaankiisa. farxadda saasoo kale muslimiinta aad bay ugu farxday, caamadooda fuqaradooda qaas ayay ugu farxeen soo noqodkii Jacfar. kama yareen farxaddii nebi moxamed uu ku farxay sala allahu calayhi wasalam. waayo Jacfar ibni Abi Taalib wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dhaqaaleeya ducafada, biri ayuu u samayn jiray. waxaa lagu naanaysi jiray Jacfar ibni Abi Taalib biabilmasaakiin, masaakiinta aabbahood. masaakiinta aabbahood ayaa lagu naanaysi jiray. abaa hurayra dadka masaakiinta kamida ka sheekeeyey, wuxuu yidhi kaana khayra annaasi lanaa macshar almasaakiin, haddaan nahay Jacfar buu ahaa ninka noogu khayr badan. waayo gurigiisa ayuuna geyn jiray, waxa gurigiisa laga cunayo ayuuna siin jiray ilaa ay dhammaadaan wixii agtiisa yaalay. wuxuu noo soo bixin jiray bahalka cukaha la yidhaahdo, waa midka subaga lagu shubto, qumbaa laga samayn jiray. inta la duleeliyo ayaa subag lagu shubanayaa, subag wuu fadhiisanayaa, waxba kuma jiro. intaan kala jebino yaan murdinaynay, waa la leeleefayaa. alla raggasay ku noolaayeen fiiriya walaalayaal. marka gurigii wixii la cunayay, muufadii kibistii ay ka dhammaatay, cukaha geedka lagu shubto subaga inta la kala dhambalo yaa la murdinayaa, wax kaloo la cuno ma laha. safka salaad waa loo horeeyaa, safka jihaadka waa loo horeeyaa, safka sadaqada waa loo horeeyaa, safka biriga waa loo horeeyaa, safka raacitaanka nebiga waa loo horeeyaa. wax walba ayagaa ugu horeeya. allahu akbar, allahu akbar. jacfaraa noogu fiicnaa. aabbihii masaakiintaan u bixin jirnay nama iloobi jirin. weligiis keligiis gurigiisii ma aadin, ilaa miskiin buu gacanta ka qabanayaa, markaasuu cunayaa waxa gurigiisa yaala. haddii wax kale la waayo, cukaha inta la kala dhambalo yaa la murdinayaa wixii markaa ku jiray. jacfar ibn Abi Taalib soo Madiina kama soo noqonay walaalayaal, wax badan maba sii jooginba magaaladii Madiina. hadduu is yidhi waad xasilaysaa,
waad degaysaa, haddaad dama'niina helaysaa, haddaad si fiican meesha u degaysaa. isla markii imtixaan kala yimid haddana. allahu akbar. alla ragga ilaahay doortay waa kaa. qofka waa la imtixaamaa calaa xasabi diinihi, diinkiisa inta uu la eg yahay ayaa lagu imtixaamaa. hadduu diinka ku adag yahay imtixaankan lagu adkeeyaa walaalayaal. hadduu diinka ku khafiif yahayna imtixaankaa loo khafiifiyaa. acdamu nnaas albalaa alambiyaa uma alamhal faalamhal. sida loo kale iimaan badan yahay. maba sii dheeraaninba jacfar inuu madiino sii deganaado, ee markii la gaaray sannadii 8aad awaa'isheedii hijrada, rasuulka wuxuu diyaariyey sala allahu calayh wasalam ciidankaas waxaa loogu talagalay inay ruum aadaan oo ay ka howlgalaan. waa fii bilaadi shaam. wuxuu madax uga dhigay ciidankaa zayd ibnu xaarisa. wuxuu yidhi haddii zayd la dilo ama la asiibo, waxaa amiir idiin noqonaya jacfar ibni abi taalib. feli waa ku jiraa haddana, ujeedaa hadduu islahaa bal si fiican u xasilo, bal ayaabtii jiifka soo dhigo, gabadhana waxoogaa dahab ha loo iibiyo, soo maaha? waa isla halkantaye. dharkana ha laga bedelo, dukaamada ha la geeyo, diracyadii waxyaabihii ha loo soo iibiyo. ma jirto, looguma talagelin meesha, looguma talagelin. ee diricii jannaday xariirtaa loogu talagalay asma binti cumays inay xirato. dahabkii jannadaa loogu talagalay asma binti cumays inay xirato. waa halgamaa weyn oo diinta allay u halgamaysaa. alaab layga bedela iyo waxyaabana laka sameeyey iyo dhulkana laka bedelaan naqaanabay dumarkina taqaana xaaladoodu tahay. ma ka fikirayaan alaabtii jannada calaa sururin mawduunah muttaki'iina calayha mutaqaabiliin. waxaa agtooda ahaaday biakwaabin wa abaariiq wa ka'sin min maciin qawaariira min fidatin qadaruuha taqdiiran. waxaasoo dhan wuu ka celay, waa ka maqnaaday, maskaxdoodii way ka baxday. asma binti cumays jacfar ibni abi taalib xaaskiisa ma noqon xaaladda noocaas ah. ma gaarin xilli guri laga bedelo, maysan gaarin xilli dahab loo xiro, maysan gaarin xilli noocaasa. isla markii odaygii haddana dagaal baa loo diray. jacfar ibni abi taalib hogaaminta ha qabto. fa in qutil aw usiib, haddii la dilo ama la asiiba jacfarna, waxaa hogaaminta idiin qabanaya cabdullaahi ibnu rawaaxa. mujeedaa 3 buu nebigu dardaarmay. amiirkiinu waa zayd ibnu xaarisa, haddii la dilo waa jacfar ibni abi taalib, haddii la dilo waa cabdullaahi ibnu rawaaxa. haddii la asiibo muslimiinta naftooda amiir ha doorato, amiir ha doorato. allahu akbar. waa la baxay. markay muslimiintii mu'ta gaareen, mu'ta waa qaryo waaqicahoo calaa mashaariqi shaam, waa dhulkan urdun agtiisa, ayaa waxaa la helay ama ay maqleenba ruum inay u diyaariyeen 100,000 oo ay sii kaalmaynayaan 100,000 oo kale oo nasaarada carabta ka mid ah. 100,000 ku dar, waa 200,000 oo kun. ayaguna waa meeqa? ayagana imisay markaa ahaayeen? ciidankaa waxay ahaayeen 3,000. laa ilaaha ila allah. 3,000. 100,000 oo ku laba jibaarmaya 100,000 oo kale, 200,000 oo kun oo ciidan gaala ah, oo ciidan ilaahay aan aaminsanayn ah, oo ciidan duliyaal ah, oo ciidan mushrikiin ah, oo ciidan sarajooga qamrada kacaba ah, iyo 3,000 oo muwaxidiin ah, muslimiin ah, mutiiciin ah, nebi moxamed tababar ka qaatay sala allahu calayhi wasalam, wiisqaadka aan korkooda ka tirtirmaynin, khamre iska daaya aan weligood khabiif iyo xumaan u dhowaanin, sida kuwan sigaarka afka ugu jira cadiga afka ugu jira, sida ay kuwan xumaanta u dhexgelayaan bay salaada ugu taagan yihiin tahajudka iyo leylka, sida ay kuwan mushrikiin u yihiin bay muwaxidiin ayagu u yihiin, sida ay kuwa ilaahay keyrkii ugu dhegan yihiin bay allah u haystaan subxaanahu watacaala. 200,000 oo kun ayaa 3,000 baa ka soo hartay. waa la tashaday marka, maxaanu samaynaa? war nebi moxamed aan u dirna akhbaar si uu noogu soo kordhiya ciidanka. mayee naga daaya, waxaad u soo baxdeen waa jihaad, waxaad u soo baxdeen jannadoon, ma jannadii baad ka laabanaysaan? waa la iscelceliyey. waxaa go-aan lagu gaaray walaalayaal in dagaalkii la galo. labadii ciidan markii ay kulmeen, 100,000 iyo 3,000 oo dagaalkii uu adkaaday, oo tinaarkii uu kululaaday, oo xanuunkii iyo dilkii uu batay, oo saal laysku dhexgelayo, ayaa waxaa istaaga ka dhacay asagoo calanka haya zayd ibnu xaarisa, sariican muqbilan hayra mudbir, asoo saas u jeeda
oo ciidankiisaa ugu jeeda oo waa 100 kun iyo 200 kun aan ka baqayn, calanka raayada islaamkaa kor u haya, gacanta kalena ku dagaalamaya ayaa la dilay radia allahu tacaala canhu. waa zayd ibni xaarisa. zayd ibni xaarisa waa dhacay, waa shahiiday. maxaa ka degdeg badnaa inuu soo booday jacfar ibni abi aalib can dahri lfaras, faraska dushiisuu saarnaa, saasuu u soo booday, calankii buu ku soo boodo markaasaa u qabtay. wuxuu watay baa la yidhi faras shaqaraa markaa ah, uma caqarahaa, boqomuhuu ka gooyey faraskii, lugaha ayuu ka gooyey. muxuu uga goynayaa lugaha? yaysan gaalada ku intifaacin, yaysan gaaladu ku intifaacin cadowga markuu dhinto asaga kabacdi, waayo naftiisa inuu dhimanayo buu isku quuray. marnaba naftiisa ma gelin inuu magaalada madiina ku laabto. laguhu ka gooyey faraskii. markii xaaladdu meesha ay martay ayuu calankii qabtaday, wuxuu dhex galay sufuuftii ruum asagoo yinshid samaynaya, asagoo geeraaraya: yaa xabada aljannatu waاkhtiraabuhaa, طيبة وبارد شرابها، والروم الروم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنصابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. رضي الله تعالى عنه. الله أكبر. يا حبذا الجنة، ألا ونكسنا جنة، ألا وحان رادنا يفيعنا، ماشي أن كتغايا ماشي أن أصعد كفيعنا، ألا أدون آخرك لفيعنا. يا حبذا الجنة، ألا وناك بذنا جنضان، واقترابها ألا دواء دقيقة دي أجرتها. وهل مرء سيفته لقد افتكريها، وهل مرء صرك لقاقوية. واقترابها طيبة وبارد شرابها، اللطيب أها وقبوبة شرابك لقى عباية، والول ملقوا عباية، ملوك ملقوا عباية، دبات ملقوا عباية. إن المتقين في جنات آمنين يدعون فيها بكل فاكهة. الله أكبر. طيبة وبارد شرابها، والروم الروم قد دنا عذابها، روم نواتنا عذاب كذيبا سودا وذا وحلقي لعذاب لها. كافرة وقالوا بعيدة أنصابها، نسب كذا نقفك إلى المسلمين ما وحسكنا هاي أنقا مسلمين ما وحسكنا هاي. رومنا وكافرة بعيدة أنصابها، لكن علي وحاضلن إيغو أهبو يري كوركيغا إذ لاقيتها هدان لكل مضرابها إنا سيفتكو قراعه. الله أكبر. جعفر، وما أدراك ما جعفر، وظل يجول في صف قصص ودحدوافيا، qof kastoo ka hor yimaado asiibaya, qoortuu ka goynaya, waa dilaya, ilaa aqiiran sidii loo beegsanayay oo loo raadinayay gacantiisay ku dhacday. midigta ahayd seefta uu ku hayay, darbaa ku dhacday, midigtaa go'day. ruf waa dhalinyaro. saxaabada wallaahi inta lixdooda lixaad oo taama god lala geliyey way yar tahay xaqiiqda. wallaahi wax lixdiisa lixaad oo taam ah lala aasay waa 2 ama 3 ama 10. inta ilaahay dartiis subxaana wa tacaala, inta diinta darteed waa dayacayna maanta, waa la dayacay maanta, waa la tuuray maanta, sidii loogu talagalay markaa loolama imaanin. sidaa darteed markii gacanta midigta go'day, fa aqada alraaya bishimaalihi, bidixdu markaa ku qabtay. suu u dagaalamayay asoo bidixda ku haaya ayaa haddana bidixdii go'day, waa la gooyey. xabadka iyo labadii go'nayd oo weli dhiigoodii socdaa yuu calanka haddana ku qabtay. marka la fiiriyo waxaa la yidhahdaa saxaabada inahum banu aadam walaysuu banu aadam. bani aadam dhaqankiisa dhan maba lahanba. saan wax samaynaya qof bani aadam macquul ma aha. waa bani aadam dhaafay macnaha. saa darteed baa labadii cadud iyo xabadkuu ku qabtay, ma daahin. isla markii mid saddexaad baa ku dhacdo, waa la dilay. markuu saas u dhacay ayaa cabdullaahi ibnu rawaaxa calankii qabsaday asagana. cabdullahi ibnu rawaaxa waxaa laga sheegaa laf baa la siiyey, wuu soomanaa markuu dagaalkan ku jira cabdullahi ibnu rawaaxa. markaasaa wiil saxaabada ka mida intuu u dhiibay laf hilib leh yuu yidhi cun shud anka ku adkaysa calooshaada, iska fursoonka, waayo waad u jeedaa dhibaatada markaa jirtaa. intuu qabtuu 2 mar goostuu yidhi anti fi dunya, adiga reer adduun baa tahay, waana fi laakhira, ana reer aakhiraadaan ahay. waa tuuray marka 2 maruu saas u goostay hilibkii,
wuu iska tuuray. adiga adduunkaad ku fiican tahay buu yidhi wa ana fi laakhira, anigana aakhiro. saa darteed ma uusan ka zuulin inuu dagaalamayo ilaa labadiisii saaxiib uu la kulmay. asagana labadiisii saaxiib ayuu markaa la kulmay. rasuulka waxaa soo gaaray sala allahu calayhi wasalam 3 hogaamiyaal in la dilay. aad ayuu u murgooday, ashadd alxusni weliba. nebigu wuu soo baxay, wuxuu soo aaday beytkii ibnu cammihi jacfar ibn abi aalib gurigiisa ayuu soo gaaray. markaasaa kow waxa uu la kulmay zawjadiisa asmaa oo yata'ahab lilistiqbaali zawjiha alghaa'ib. subaxba subaxa ka dambeey ilan telegramna ma jiro, mobilna ma jiro. subaxba subax ka dambayso isdiyaarinaysaa inuu maanta imaan doono, inuu maanta soo geli doono. waa imtixaan kale laftigeeda, imtixaan kalaa markaa ku socda. zawjkii waa ghaa'ib oo waa la dilay, ayadiina waa isdiyaarinaysaa yata'ahabu liistiqbaali zawjiha alghaa'ib. say u soo dhowayso guriga way hagaajinaysaa, way nadiifinaysaa, wax fiican bay ku samaynaysaa, dahyo fiicanay ku xirtay, way sugaysaa. isla markii waxay cajiinaysay cajiinkeedii, macnaa muufadii sidii loo dubi lahaa. waxay u qubaysay carruurteedii, waxay u marisay kareem ama wax saliid oo kale ah. way u labistay ilmihii yaryaraa, way u labistay. asma waxay tiri mar allaala markii rasuulka korkeena uu soo qaabilay waxaan ka arkay hulaala wax la yidhaahdo. hulaalada waxaa la yidhahdaa go' yar oo khafiif ah oo murugta loo qaato. nebiga wejigiisa waan ka dareemay bay tiri inay wax dhaceen, waan ka dareemay inay wax jiraan, laakiin waan qarsaday oo ma ana weydiinin. waxaan ka cabsaday naftayda inuu nebigu ii sheego waxaan markaa ii cajibinin, laakiin ma aanan doonin inaan weydiiyo jacfar anoo ka cabsanaya an asmaca minhu ma akrah. waa dhinta in lay dhaho, amase wax aniga aan nacayo naftayda aan saas u fiicnayn inuu markaa ii sheego. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuuna salaamay tiri asma binti cumays. markaasaa wuxuu ii yidhi iigu yeera jacfar ilmihiisa. waa loo yeeray, way soo kala ordeen, nebiga xaggiisay u soo kala ordeen ayagoo aad u faraxsan oo soo degdegaya. wuxuu guda galay rasuulka yataraaxamuuna calayhi, kullu yuriidu an yasta'fir. yatasaaxamuuna macnaha way isku soo ciriiriyeen. macnaha nebiga markuu u yimaado caaday u lahaan jireen, mid dhinacaanu ka qabsan jiray, mid dhinaca kaleu ka qabsan jiray, saasay isugu wareejiyeen, way isku soo ciriiriyeen. mid kasta wuxuu doonaya ilmaha ka mid ah inuu nebiga nasiib ka helo. markaasuu nebigu saa ugu soo fooraray, wuxuu guda galay inuu shushuminayo amase uu urursanayo xaggooda. labadiisa indhoodna biyaa ka socday. rasuulku waa oynayay sala allahu calayhi wasalam. ciyaalkii saasay u haystaan, way qosqoslayaan. nebiga madaxuu saa ugu salsalaaxaya ama madaxuu ka dhunkanaya dhammaantood. intaa ka bacdi indhihiisa biyaha ka soo socda ayagu ku tifqaaya. asma binti cumays way iscelin weysay, waxay tiri biabii anta wa ummii maa yubkiik, maxaa kaa ooyinaya? abalaqa can jacfar wa saaxibayhi shay, ma jacfar iyo labadiisii saaxiibaa wax kaa soo gaaray? qaala nacam laqad istushhiduu hada alyawm. maantay dhinteen buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. maanta ayay markaa shahiideen. markaa agteeda qaadat albasmatu min wujuuhi sigaar, markay maqleen oohinta hooyadood. taariikh baa meesha ku jirtaa tilmaamaysa inay asma aad u oysay maalintaa. oohinta ay markaa oynaysay, qof baa nebiga u imaanaya oo dhaa asma way oynaysaa, aamusi, waa loo tegayaa, ma deelayso, waa loo soo noqonayaa. macnaha taariikh noocaasa meesha markaa ku jirta. laakiin ciyaalkii yaryaraa markay maqleen hooyadood oohintoodii ayagana way raadaysay. waxay ku adkaadeen, ay ku dhegeen meelihii ay taagnaayeen. waxaad moodaa madaxyaalkoodu inay shimbiro saaran tahay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu iska soo baxay asagoo iska tirtiraya ilinta. taariikhda qaar baa waxay tilmaamaysaa inuu yidhi iigu yeera nin xallaaq ah oo tima xiiro ah. markaasaa loogu wacay, carruurtii baa madaxa markaa loo xiiray. rasuulku wuxuu yidhi allaahuma akhlif jacfaran fii waladihi, ilaahayow jacfar awlaadiisa khaliif u noqo, ilaahayow khaliif u noqo. allaahuma akhlif jacfaran fii ahlihi, ehelkiisana ilaahayow bedel khayr qaba. markaasi intaa ka bacdi rasuulku wuxuu yidhi waxaan arkay jacfar ibni abi aalib oo jannada ku jira radia allahu tacaala canhu. meeshuu raadinayo waay, waa meeshii hamiga iisi ahaa, waa meeshii kama dambaysta ahaa, waa meeshii loo halgamayey. 2 garbood ayuu lahaa oo dhiig leh, 2 baal ayuu lahaa oo dhiig leh.
asagoo masbuuq ku ah. saasay u silkisan yihiin. riwaayad kale waxay leedahay labadii gacmood 2 baalaa loogu bedelay. intaa waxay ka dambeeyay jawf shimbireed ayuu ku jiro jannada saas lagula duulduulayo bannaankeeda. say noqotay jacfar ibni abi taalib. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka tamaninayeyna waa uu ka gaaray, waana halgamay oo diinta islaamka iyo khayrkeediiyo wanaaggeediina wuu halgamay. maca daalika qof kastoo annaga naga mid ah waa in hamigiisa uu noqdaa inuu jannada ilaahay helo subxaanahu watacaala. waa in taariikhda saxaabadu ay noqoto taariikh dadka muslimiinta u noqoto cibra, u noqoto dhaqan, u noqoto nolol, u noqoto raacitaan, u noqoto wax walba oo lagu daysado oo khayr iyo wanaag iyo sharaf iyo karaama markaa ah. ilaah xaq ayaanu ka baryana inuu xaqana waafajiyo, nagana dhiga dad barta siirada saxaabada kuna dayda haddii ilah yirahdo. wabilaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu watacaala aclam.